عافيماتك تبيلها عافيماتك daryeeliyatag inasho dalkayga maxaa u diiday anuuntayda baad daryeelayn dantiisu nimay cidlaysay maxaan dawadiisa raajay dagaalka sokeeyahayga inuu dabayaaqa yeesho dadkayga maxaa u diiday بس بسم الله الرحمن الرحيم أنا waxaa la yiraahdaa magacayga Saalax Maxamed Xayle waxaan ku dhashay Laasqoray muddada inta aan jirayna Laasqoray soonaheedaan ku noolahay halkan hadda aanu ka hadlayno waxa weeye goobtii warshada Laasqoray berigii dawladdu jirtay laga shaqayn jiray hadeerna wax shaqo oo ka socota ma jirto waa burburtay magaalada markaan warshadaha kale ka jira warshadaha kale laftigooda hadeer mid baa hadeer xoogaa ka shaqaysa tii hore oo weyneed oo dadku isku dardarsaday waa naga xiran tahay taacabkuna ma jiro اللهم صل على محمد Laasqoray waa magaalo weyn oo qadiimiya waxay ku xiran tahay badda iyo barigaba Laasqoray waxay ahaan jirtay magaalo weyn oo qadiimiya kalluun baa ka soo bixi jiray kalluunkaas dalka oo dhan iyo dibadda waa gaari jiray dekedana ka soo degi jiray hadda taaganahay waana aragtaan hadda say tahay waa burburtay waxaana ku soo xiran jiray gaadiidka badda ka shaqeeya oo warshada u shaqeeya laakiin gaadiidka waaweyn oo dooyaha iyo maraakiibta kuma soo xiran jiray waxa ku soo xiran jiray warshada gaadiidkeeda oo laashash iyo siximado iyo foolfayaal iyo waxa ka kooban dooyaha yararkaana waa ku soo xiran jiray laakiin hadda wax ku soo xirtaa ma jiraan waa meel xiran waxaan ugu warbixisay oo kale maxaa dhibaatooyin kala kulantaan dhanka jiriifka waxaanu kala kulannaa waad aragtaan haddeer ay idin muuqdaan dooyuhu waa hoganayaan badna waxaanu ugu tagnana ma hayno waana joogaanin kalluunkiina waa la tageen dee tacabliyada waxa keenaysa badda in xoog maraakiib iyo dooyaba ay ku jiraan marka wax xiriir ma la sameeysan xagga maamulka in wax laga qabto ما بعرفنا ما بعرفنا عيد عن نوت ما عيد عن هذا اللي تونا ما هو نقنبه لكن هذا الله هذا لنا عيدنا نقمه سقاطه ما سدا دانك الباطوين كبرعد بديد حق كل ما يسقى محيدي كانت برعد بديد انا بريه هوري مر نوتي لكن هذا waa kala wadana بريه hore bay mar xoog nagu soo yeelatay laakiin hadda waa kala wadana oo ma aragno soonaha ayagana burcadbeed ma lahaan jirin dad soo duulay oo boosaas ka soo duulaan meel kale ka soo duuleen ba burcadbeedku ahaan jiray laakiin anagu ma aragno hadeer okay waxa kamida kalluunka iyo waxa badda laga helo waxa kamida khayraad waxa kamida de kalluun nooc kasta waa faras ha noqdo tabadiin ha noqdo saynub ha noqdo libaax ha noqdo inkastoo hadeer libaax uu suuq ba lahayn marka barbajoogta maxaa ugu baaqaysaa barbajoogta waxaan ugu baaqaynaa sida dalka ay u caawinayaan oo Soomaaliya inta kale u caawinayaan inay annagana caawiyaan baan ka codsanaynaa
معايا وقعنا سوقه تراول خلوقه تراول ولا محمد والله انا عاقل منك ولا عاقل مغاربه صفاره قالوا بريد صفاره ليه بقول ايه والله تسوي ملاسي حتى بسم الله الرحمن الرحيم halkaanu hadda joognaa waxa weeye beeraha mashaxaleed horta magacaygu waxa weeye Caawil Maxamed Ciise waxaana joogaa tuulada mashaxaleed halkaanu joogno waa beeraha mashaxaleed kamid ah waana beero badan oo ka kooban 48 beerood teed ugu horeysay waatan aynu hadda ku jiro beera asaasi dheer oo muddo soo jireen ahaa wax hadda la beerayo faraa lagu hayana waa jiraan kuwa hore taariikhiyana waa jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeye Cabdiqani Saciid Nuur baa la yiraahdaa waxaan ahaa waagi hore dhalinyarada aad fanka u danayso fanka jecel suugaanta siba in badan hadii aan isku dayay inaan macnaha wax alifo waagi dambe mu'allif baan noqday inaan heesaha jacaylka ama gabayada sidoo kale haddana nasiib daro ma aan tegin maslax ama aan hees ka qaado ama aan majaajileeyo ama aan gabay ka jeediyo balse si fadhi ku dirira baan heesaha jacaylka oo waliba qusaya deegaanka oo hidiya dhaqanka haddan hees baan rabaa inaan beejkeeda kuu sheego ama ilaa 2-3 heesood oo mid walba haddan beejkeedu ii diyaarsan yahay waan haddan isku dhamaystirayn hees waxaa la yiraahdaa bilicdii sanaag aan ku horeysiyo iyada heesaas waxay ka bilaabataa dhulka bilicda buuraha qurxoon bilicdii sanaag ku soo bara bilcayshiyo ragaad mirci beeraheed moon booqashada mushaxaleed ka bogo baarista wacangel dooro beeg arageeda taan u buseelayay barashada kalgacanaan bilaabanee aynu baran tagnay biladiga guddoon waa beej heestaasi hees kale baa jirta in dhalinyaro la yiraahdo geeldoora heestaa wuxuu leeyahay abwaankii sameeyey waxaa tahay gobaadey guulaamo iyo roob hilacgalalac leeyahay awrta gibilka loo xiray geeldooro lagu dhigay geyigaba dhammaantii goglan tahay xareedoo geedaha caleentii hadaftii iskaadhay adigoo godoomoogayaan kale ka dhaarto aawaday u golongolay gocle kuguma dhaafeen aynu gebagabaynoo gelbis iyo cayaar iyo guri aan yagleelle goormaynu kulannaa gobaadey jacaylkii wuxuu gaafureegaba guudka mayga rarayo magelgelay naftaydii may diiday gama oo seeta aan go'aynayo maygu geesha xarigoo garbaduu may xiray adigoo godoomoogayaan kale ka dhaarto aawaday u golongolay gocle kuguma dhaafeen aynu gebagabaynoo gelbis iyo cayaar iyo guri aan yagleelle goormaynu kulannaa mid kale jirto nin dhalinyaro ah maalin wuxuu yiri waxaan rabaa niyahow macnaha hees jacayl oo ku saabsan anigu meel barxada fadhiyo dhalinyaro ah shimbirta leh hududka baan soo hormartay markaas uu waxaan rabaa hududka inaan fariin isu dhiibno oo barnaamij dhalinyaro buu ahaa inaan warqad isu dhiibno oo aan gaarsiino meeshay ku noolayd gabadh xiriir naga dhaxay hay saaxiibaan ku yiro heestan soo socota baan u tiriyay inkii saaxiibkay waxay leedahay hudhud iyo waraaq iyo hambaliyada salaan iyo hawraar baan ku farayaa adigaan habsaamin oo hirka iyo daruuraha hawo sare marayo hawlkaro aan daalayn hawraartan ku sii faro magaalada hadaaftimo habboontii ku noolayd hagarlii u gaarsi hojis gaar ay yeesho hoos wada faqo shira hanaqaadka noloshiyo heerka caafimaadka iyo himiladan ku noolahay hindisaha uga sheekay habboon waxaad tiraahdaa hareertayda caashaqa sidaan heegan ugu ahay adna hawlkar ugu noqo